asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalkiina cabdalla arizona waxaan halkan nagu soo gudbin doonaa taariikhda dalka Ghana. Ghana wuxuu dhacaa galbeedka qaaradda Afrika wuxuuna dalkani Suudaan la wadaagaa wadamada Ivory Coast, Togo iyo Burkina Faso. Badka uu dalkani ku fadhiyo waa in ka badan 238,000 oo kiiloomitir square ah wuxuuna sidaasi ku noqonayaa dalkii 8aad ee ugu dalka weyn ee caalamka. Dadka ku nool waa in ka badan 28 milyan, saas awgeed wuxuu ku noqonayaa dalkii 45aad ugu dalka badan ee adduunka. luqadda rasmiga waa luqadda Ingiriiska. caasimadda waa Accra waxayna ka samaysatay 3 tuulo isku tagtay waxayna si rasmi ah u noqotay caasimad 1876 wuxuuna magacani ka yimid Accra oo ah Quraanjo xaga magaca kale laga wado boqor dagaalyahan oo soo maray dalkaasi. Portugiiska ayaa qabsaday qarnigii 15aad wixii xornimada ka heleen 1957. wadankani Ghana wuxuu ku jiraa wadamada ugu dhaqaalaha fiican ee qaaradda Afrika wuxuuna naaftada dalkani la soo saaray 2017 xaga 2016 90 tan oo dahab oo soo saaray wuxuu ku jiraa wadamadii lixaad oo soo saaro dahabka.